asxaabi channelka subscribe saar 100 subscribe na gaarsiiya muuqaalkan like saar. Aniga qisada sidan ay ku bilaawanaysaa. Anagu waxaan ahay family faraxsan oo aad iyo aad u faraxsan. Wiilkayga iyo xaaskiisa aniga naagteeda ayaa guriga iskula degneen. Intaan ayaa guriga iskula degneen. Maalin maalmaha kamid ah xaaskayga ayaa geeriyootay. Xaaskayga ayaa dhimatay. Markii aan xaaskayna soo aasay, aniga waa xanuunsaday oo isbitaal ayaa la dhigay. Aniga waxaan noqday curyaan. Curyaan ayaa noqday socon waayay. Wiilkaygana aad ay ula tacaaliyay oo markasta daawooyinka ayuu siin jiray oo xilligii loo baahnaa ayuu siin jiray. Maalin maalmaha kamid ah ayuu yimid wuxuu yiraahday aaba sidee tahay oo ma caafimaad qabtaa. Waxaan ku yiraahday wiilkaygii waa caafimaad qabaa. Wiilkaygii waxaan arkay adoo gabadha lacag aad iyo aad u badan siinaysid maalin kasta. Wuxuu yiraahday aabe markaa qarin karo runta waa siiyaa maalin kasta. Anigu waxaan ku yiraahday wiilkaygii maxaa u siisaa lacagta aad u badan. Wiilkaygu wuxuu yiraahday aabe maalin kasta waxay dhahdaa lacagtaasi wali maalin kasta iga baryadaa. Anigu waxaan ku yiraahday maxaa u siisaa maalin kasta ii sheeg. Arintaas ayaa raba inaan ogaade. Markaasuu yiraahday aaba mar dambe siin doono iga raali noqo. Maalintii ku xigtay ayay lacag badan haddana u siiyay. Haddana waxaan ku yiraahday wiilkaygu waa ku arkay maxaa u siisay. Wuxuu yiraahday aaba mar dambe uma noqon doono ma siin doono lacagta. Markaasuu ku yiraahday haye waayo hawar iska tag. Markuu wiilkayga tagay maalin maalmaha kamid ah ayaa weel ayga jabay. Xaaskiisa ayaa igu qeylsay tiraahday maxaa weel ku jibisay. Markaas wiilkaygana wuu daawanayay. Gabadhii maalintii dambe waxay tiraahday adiga ma guriga inaad la joogtid maaha. Arintaas ayaa la yaabay oo wiilkay wax ku qaban waayay. Arintaas aad iyo aad ula yaabay. Ayaga ay soo ceeriyeen ayagana guriga ayay saaxdeen. Aniga way soo ceeriyeen oo waxay keeneen banaanka. Dhanka ayay keeneen. Aniga banaanka ayaa iska wareegay waxa cuna ma haysan. Aniga caloosha aad iyo laga qabtay aad iyo aad. Subaxii markaa soo baxay nin ayaa i dhahay alla adigii miyaa cuntada cun. Markii cuntada i siiyay aniga cuntadii waa cunay oo hal daqiiqo ayaa ku dhameystay. Ilaaha ay dhahday alxamdulillaah. Habeenkii markaa saxday subaxii soo kacay haddana meeshii ayaa waxaan ka bilaabay tugsigeygii. Markaa tugsaday lacag ayaa xawaa soo gashay. Markaas ku soo gadan jiray rooti qaleela. Subaxyada kamid ah gabadh ayaa ayadoo soconaysa ayaa waxay siisay lacag aad iyo aad u tiro badan. Aniga waxaan garan waayay wixii lacagta aad u tiro badan ii siisay. Markaas ku yiraahday maxaa ii siisay lacagtan aad u tiro badan. Markaas tiraahday waxaan ku arkaa adoo maalin kasta meeshan ka tuugsanaysid iska qaado. Marka lacagtan waa u qalantaa way iga tagtay anigana waa farxay. Markaas yiraahday lacagtan gabadhan bilaash mise kugu siinay oo waxaas yiraahday ayada laftirkeeda oo kay farxay lacagta ku keentay. Markii dambe waa soo baxay oo waxaan go'aansaday inaan u soo gado dahab ama sida u taqaan faraanti. Markaa waa soo baxay oo waxay imaad dhanka iyo meeshii dahabka lagu gadaya. Waxay dhanka meeshii dahabka lagu gadaya. Ninka ayaa ku yiraahday faraanti isii. Markaasuu dhahay faraanti nooceeya. Saxan ku faraanti xawaa lacagtiisu fiican tahay. Markaasuu siiyay faraanti xawaa lacagtiisu fiican tahay. Markaas waxaan siiyay lacagtii. Inta lacagta siin ayuu dhahay adiga ayaa ogeynaysaa. Markaasaan ku yiraahday iska daa adiga qofka ogeynay. Lacagtii ayaan siiyay. Markaasaan ka soo tagay. Markaa ka soo tagay waxaas yiraahday sidee ugu geynaysaa. Markii dambe lahay waxa waa caadi sida ugu geynaysid way iska fududahay. Ninka lacag ayuu damcay inuu siiyo. Markaasaan ku dhahay iska daa waxba ha isiin iska qaado. Ninkii markii dambe waan ka soo tagay oo waxaas lahay gabadhi sida ugu geynaysay ayaa ka fikiriyay. Markaan aan ka soo baxay waxaa la kulmay nin asaga meesha ka shaqeeya. Markaasaan ku dhahay alla gabadhi ma igu yeeri kartaa. Markaasuu dhahay may. Waadiyihii meesha jooga ayaan u tagay. Waxaan ku yiraahday alla gabadhaas ma igu yeeri kartaa. Markaasuu dhahay may ani ma garanayo. Markaasaan ku dhahay igu yeer. Markii aan bariyo ayuu dhahay haye waayaha waan kugu yeerayaa. Markii dambe gabadhii ayaa i timaaday. Waxay tiraahday maxaa rabtaa. Aniga markaas ayaan waxaan soo saar faraanti. Waxaan ku yiraahday sida ay farxisay ayaa anigana kaaga farxiyay. Gabadhii markaa way faraxday oo waxay tiraahday mahadsanid. Aniga markaas ku dhahay waxay tiraahday adiga maxaa faraantiga u keentay oo dhibaatada gaasta maxay tahay. Aniga markaas aan ku dhahay aniga wiilkayga iyo xaaskiisa ayaa guriga iga soo buriyay. Saas daraadeed ayaa xaggan u joogaa. Markaas tiraahday anaa ku keeni doona. Aniga waa iska sugay intii ii keenayso oo markii dambe anoo laamiga iska maraya ayaa waxa ii yimid wiilkaygii oo asagoo naxsan wuxuu lahaa alla aabe sida maxaa ka dhigay oo maxaa laamiga ku marsiiyay oo
dharkaaga wasaqdan badan saan ka dhigay. Markaasaan ku dhahay aabe xaaskaaga ayaa saan ii soo gashay ma xasuusinaya iyo adiga marka ii qaban waysay. Marka intaa ku dhahay wuxuu dhahay aabe iska kii cafi khalad weyn ayaan kaa galay. Anigu mehe inaan saas sameeyo aabe iska kii cafi wadanba uma noqon doono. Aniga markii dambe waxaa sirahday miska cafisaa. Markii dambe waa ku adkeeyay. Markii dambe ayaan dhahay haye aabe waa ku cafiyay mar dambe ha noqon sidaas oo kale. Markii dambe guriga ayuu keenay xaaskiisa markii aragtay way faraxday oo markii dambe macay isisay waxay tiraahday aabe iga raali noqo saas mehe inaan sameeyo waxaan ku yidhi iska caadi way saas way dhacday mar dambe dhicin doonto. Wiilkayga haddana mar dambe macay u siiyay markaasuu dhahay aabe soo dhawow mar dambe sidaas oo kale ma dhici doonto iska kii cafi oo mar dambe uma noqon doono aabe iska kii cafi. Markii dambe ilmahay markii inta ugu dheheen oo waa cafiyay. Markii dambe wiilkayga ayaa waxaan ka codsaday inuu ii geeyo gabadhii meeshii ka shaqeynaysay. Gabadhii markii ii geeyay habeenkii markii aragtay gabadhii aad iyo aad ay u faraxday. Markaasay tiraahday alla ma adigiiba. Markaasaan ku dhahay waa maasan tahay ilaahay sida ay farxis ilaaha kaaga farxiyo. aad ayaa u mahadsan tahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Kadib markay caawisay anigoo faqiir ah oo meel aan jiifto aan haysan oo qawowga i dilayay. Waxay tiraahday waxa iska caadi waa la isku leeyahay. Maalintii dambe waxaan imaanay wiilkan isbitaalkii oo dhakhtarka ayaa u tagnay wuxuu dhahay insha Allah lugaha way ku caafimaadayaan waa inaa lugahaaga jim gelisid ordisiisid biraha afufuushid. Markaasaan ku dhahay haye waayahay dhowr bilood ka bacdi lugahaygu ii caafimaadeen oo waxaan noqday qof caadi oo socon kara. Kursiga ku soconin waa iska daayay. Asxaabay sheekada subscribe noo saara like noo saara fiidiyoyadaan oo kale haddii aad noo soo badiyo subscribe noo saara. mahadsanidin mac salaama.